wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yunis oo maanta warfidiyeenada kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa ka warbixiyay kulan ganacsi oo ka furmay magaalada London kaas oo ay wada qabanayaan Somaliland iyo dawladda Ingiriisku. waxaanu sheegay in kulankaasi ahmiyad ballaaran u leeyahay ganacsatada Somaliland isagoo sheegay inay ka soo qayb gali doonaan shirkado caalami ah. shirka weyn ee ganacsiga ee dawladda Somaliland iyo Ingiriisku ay ku qabanayaan bisha soo socotay October 14keeda shirkaas oo ah shirkii ugu weynaa ee dawladda Ingiriisku ka qabato London waxa sharar hore ay ka qabteen Ingiriisku wadana fara badan oo la looreeyo wadana oo Malawi leh oo Gabon leh oo Cameroon leh iyo wadana fara badan iyo Djibouti iyo Soomaaliya imkana waxay noqotay doorkeeni marka waxaanu doonaynaa inaanu idin sheegno sidii aan looga shaqeyn lahayn wacyigelinta arrinka weyn ee maanta khuseeya ganacsatada ee Somaliland iyo ganacsatada caalamka ee aad iyo aad u xiiseynaysa inay ka soo qayb gasho shirka waxaanu filaynaa inay dad fara badan oo aad iyo aad ahmiyad xoog leh u saaraya khayraadka waddanka leeyahay inay ka soo qayb galaan waxaanu filaynaa inay ganacsato fara badan oo Somaliland ka qayb galaan shir baan halkan ugu qabanay ganacsatadeena iyo Chamber of Commerce-keena iyo wasiirkeena Musa Qaasin oo imka naga maqan laakiin arrinkan liil garaynaya arrinkan waa arrin aad iyo aad u weyn waxaan u aragnaa inay maanta Somaliland gaadhay heer caalamkii uu tixgelinayo in khayraadkeeda dadka caalamka loo sheego marka horta waxaan idinku yeelnaa in shirka soo socda hawshiisa naga qayb gashaan hay'aysiintiisa iyo warkiisa iyo awareness-keeda ka qayb gashaan waayo waxa waddankeena quseeya waa waxaanu doonaynaa in dadkeena shaqo u abuurto oo waxaanu doonaynaa in maalgashayaashu yimaadaan nabadeedna iyo xasiloonideeda awgeed baana loo imanayaa iyo shaqada fiican ee dalkeena iyo dadkeena ka socota marka waxaanu doonaynaa haddaad tihiin baahda saxaafadda inaad beeshiinaasi aad iyo aad arrinkan looga shaqeysa maana mahadsantihiin Mukhtar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa.